السلام عليكم سؤال برنامج كفاعصب برنامجkeena faacusub toddobaadkan aad iyo aad ayuu u xiiso badan yahay waxaana ku daawan doontaan wararka xubinteenii maalinteyda iyo xubinta kale ee sportska iyo xubinteenii kale ee su'aalaha isbitaalka Banaadir oo ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa laga hirgeliyay dhalo lagu koriyo caruurta aan bilo dhameysan taas oo looga maarmayo dhibaatada haysata qoysas badan oo Soomaaliyeed dhaladan ayaa ka caawinaysa qoysas badan in ay caruurtooda ay wax saameyn ah ku yeelanin bilo dhameysiga qayb muhiim ah oo insha Allah taala isbitaalka ku soo kordhi doonta muddadii 30 sanaad ahaydna aanan ayadoo madax banaan aanan ka tirsaneyn isbitaalka oo laho newborn ama qaybta baxnaanada dhalaanka aan bilo dhameysan runtii sharaf gaar ah noo tahay maanta inuu agaasimiin nagala soo qayb galo agaasimaha wuxuu mas'uul ka yahay qaybta reproductive health-ga horumarinteeda runtii wuxuu mar walba noola dardaarmi jiray inaan kaalinta koowaad ama priority 1 ka dhigno dhalaanka iyo hooyooyinka runtii dhaqaatiirta ka faa'iideystay iyo shaqaalaha kale ka faa'iideystana waxaan jecelahay sida ay waqtiga uga bixiyeen inay ka faa'iideystaan iyo macallimiintii bixinaysa ay ugu horeyso doctoreso ubax oo dhakhtarad ku takhasustay dhalaanka neonatologist ama specialist caruurta iyo gaar ahaan dhalaanka ah inaan wax badan ka faa'iideen kana faa'iidi doontaan runtii tababarkan kaliya kuma ekaan doono isbitaalka Banaadir waxaan la soo xiriiray isbitaalo badan oo runtii u baahan tababarkan heerka sare ah oo aan sameynayno hadda listigii sidii ay u kala horeeyaan insha Allah taala aan jecelnahay markii aan qaybteena furno oo shaqadii aan bilaabno ay noo degto insha Allah taala inaan tababarkan si baahin doono ilaa iyo goboladana aan gaarsiin doono inta ay dhakhtarada ay nala joogto insha Allah taala iyo dadka ka faa'iideystayba inay yihiin dad TOT ah am tababarayaal la rabo inay si tababaraan mihnadlayaasha caafimaadka dhalaankeena Soomaaliyeed runtii numberka dhimashada aad ay u badan tahay waxa ogtihiin xogtii ugu dambeysay kunkii cunug oo dhalata 40 kamid ah ayaa dhimata marka numberkaas waxaan rabnaa insha Allah taala inaan zero geeyno oo ama aan baabi'ino hooyo kasto aan hooyooyinka Soomaaliyeed kamid ahay hooyo kasto dhasha waxay jeceshahay canugeeda asigoo nabad qaba inay dhabta saarato insha Allah taala inaan rajadaas hooyooyinka Soomaaliyeed oo 9 bilood soo siday aanan aysan maxay ahaatood niyo jabin aysan dhihin dalkeena wax xanaano ah kuma helaan ayaan ka hortagi doonaa haduu Ilaahay yiraaho haduu Ilaahay nala garab galo waxa kale oo faa'iidadaas anaga naga sii faa'iido doono ilmaha Soomaaliyeed oo meeshii isbitaalka ugu badnaay oo ilmaha ku dhalan jireen ahay anagii markii aan tarangareey oo dad wax saxan sameynay aan ahay alxamdulillah waxa u maleynaa inaan wax badan ka badbaadin doono inay ilmaha noqdaan ilmaha handicap ah oo daqiiqad ugu horeysa ugu faa'iideyn doono kadibna wixii daawo u baahdana saas u sii daaweyn doono tan kaleeto meeshii markii hore taa ku sameyn jirnay oo noo ahayd ICU noo ahayd spacekeeda aad u yaraa markii spaceka naga buuxsamo hooyo Soomaaliyeed oo waxba haysanin marka dhahno meel ma noo banaan sariir marba xataa waxaan saar jirnay maxaan meelaha oo ilmaha markii hore lagu sameeyo station ugu horeeyo meelaha daawada lagu bixiyo miiska lagu miisaamo xataa qaar aan jirnay intaas dhan markay buuxsata dhahayd Boston istaalka ma ka banaanay istaalka la geeso ama maxaan ku raadaa awoodeena ma dhamo inaan cunuga wax u qabano maadaama waxyaabo ay naga maqan yihiin qalabyo qaar naga maqnaayeen yani aad ay waxaan u badneed marka la dhaho istaalada oo nut ICU qabano kale aad waxaa rajeynaa baahidaas in hadda booli doono maamulkeena uga mahad celinaya oo standard ICU na loo sameyn doono oo oxygen dhibaatadiisa aan qabi doonin ilmaha barmajoorada nutrition koodii waxooda inay baahidaas dhan dabooli doono marka aad ugu faraxsanahay waan u mahad celinayaa dhammaan tiimka shaqeeyay shaqo badan marka noo taliyay u taala bahda caafimaadka u taala dadkeenan oo professionals ka ah xirfadlayaasha caafimaadka mehnalayaasheena anagay noo taala marka taas
sidaan wax uga qaban lahayn wejigaasna aan wax ka bedeli lahayn kaas waxaan ka iri few words kaas xaggii hooyadii xagga marka la yidhaha dhallaankii ama newbornkii waxba kama imanna ma qabanba isaga meelaan iska dhignay maxaa yeelay waxaana dhibaysay hooyadan waa umul raactay laakiin hadda waxaa la yidhahdaa ilmaha waxaan dhahnaa waa saqiir mahano marka hadda weli waa saqiiraday noo joogtaa waxaan idinka rabaa marka tan daliil waxay u tahay maanta shirkan aan yeelanayn waxaan rabaa inaad xusuustiin record gashatiin marka ugu horreysoon bilowno inaan ka fikirno annagoo maas intaan la eg in newbornka dhib naga haysto baahina aan u qabno inaan wax ka qabanno intaasaan rabaa inaan isxasuusino alxamdulillah dadaalaa socda in the last 2 years sanadkan iyo sanadkii hore aan xoogoo juhdi gelinay alxamdulillah wax badanaa noo soo socda waa aragtaan marka ugu horreysay in ICU aan ka dhisnay meeshan labaatan kooda November waxaa Soomaaliya laga xusaa maalinta macallimiinta xaflad lagu weyneynayo ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa ka qayb galay caruur dhigata dugsiga hoose dhexe iyo sare macallimiin iyo madax dawladda sidoo kale maalintan ayaa ah maalin si weyn loo xuso maalinta macallinka ardayda ayaa soo bandhigay heeso ay ku muujinayaan wanaaga macallinka sidoo kale khudbado ayaa halkaas laga jeediyay بسم الله الرحمن الرحيم bahda TV-ga qaranka aad baa u mahadsantihiin meeshan maanta waxaan u dabaaldegaynay maalinta macallinka Soomaaliyeed oo ku beegan 22 November runtii macallinka Soomaaliyeed waa shumaca u ifa oo asagu ifa oo dhamaada si ilmaha iyo ubadka Soomaaliyeed ay wax u gaaraan oo dad u noqdaan mihnada macallinimadu waa mihnadii ambiyada maaragtay iyo dadka ummadaha hormariyay markii macallin laga hadlayo waxaa laga hadlayaa qof walba oo mujtamaca kamid ah meeshii uu ku soo qaadanayay tababarka ama siyaasi ha ahaado ama aqoon-yahan ha ahaado ama dhakhtar ha ahaado ama injineer ha ahaadee wuxuu noqonayaa meesha koowaad ee subaxa koowaad la geeyay waa in a ba ta loo dhigaa marka a ba ta cidda dhigtaa waa macallinka Soomaaliyeed runtii wuxuu naga mudan yahay karaameyn duruufaha dalka Soomaaliya ka jira ayuu qayb ka yahay laakiin wuxuu haddana xus gooni u sii mudan yahay macallinku kuma milmin colaadda iyo dhibaatooyinka dalka ka jira macallinku mar walba wuxuu u taagnaa sidii ubadka wax u bari lahaa waxaad ka warhaysaan dawladnimada markay burburtay in dib loo soo asaaso waxay u baahatay 10 sano laakiin iskoolada iyo waxbarashada iyo macallinku qof walba gurigiisa ayuu hoos uga sii waday macallimiintaas aan sheegayno waa kuwa quraanka kuwa iskuulada kuwa jaamacadaha iyo dhammaan meel walba macallinka uu joogo macallinimada ugu weyna ubadka Soomaaliyeed hooyada ayuu ka qaataa laakiin maalinta macallinka xuskeeda sidaas weeye soo qaybgalayaasha munaasabada lagu weyneynayo maalinta macallinka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta culumadiinka madax horumarinta macallimiinta gobolka Banaadir oo nala joogo ururada haweenka oo nala joogo macallimiinta Soomaaliyeed ardayda sharafta leh dhammaan cid walba bahda saxaafadda cid walba iyo teatarka ku joogta hay'adda Efisom dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib alxamdulillah ilaahay amaad iskale isugu keenay munaasabadan runtii quruxda badan munaasabadan sida wadogtii waxaa iskala maanta macallinka waxaa soo qabanqaabay macallimiinta Soomaaliyeed waxaana maalintooda in qof walba iyo meel walbana way ka dhacaysaa iskuuladii ka wada dhacay hoteelo badan ay ka dhacaysaa goboladii ka dhacaysaa waa munaasabad ugu darajeynayo lagu weyneynayo muhiimadda uu leeyahay macallinka Soomaaliyeed runtii macallinka sida ku xusan boqorka macallinka waa caawiye waa gargaare waa waalid wax walba oo ammaana ummad leedahay ayaa loo dusha loo saray runtii ammaantaasna wuu muteystay special haddana macallinka Soomaaliyeed duruufaha ku shaqeeyey xaaladaha kala duwan soo maray dadku u shaqeynayo biyaha ku shaqeynayo waa mudan yahay in walba oo wanaaga runtii uu naga istaahilaa wuuna shaqeystay marka wadan iyo runtii waxaan usoo istaagay inaan iraahdo macallinka Soomaaliyeed meel walba uu joogo horta inaan iraahdo hambalyo ilaahay sanadkiisa in bashbash iyo baraare Allah uu gaarsiiyo
waan ilaaway inuu cudurka coronavirus jiro oo khatartiisa aad u badan tahay intaan wajiga gacmaha la aadin waa inaan hadda gacmaha iska dhaqaa sababta aan sidan u sameynayno wasaaradda caafimaadka waxayna faraysaa in markaad hindhisayso xusulkaada laabatid ku dabool afkaaga ama sankaaga afshareer ku dhaqo gacmahaaga mar walba jeermis dile waa inaad dadka ka fogaataa ilaa iyo 1 mitir waa inaad dhaqdaa gacmahaaga mar walba haddii aad isku aragto qandho ha aadin saaxiibadaada ee u sheeg waalidkaaga waa inaan ku dadaalnaa nadaafadda si aan iskaga ilaalino cudurka coronavirus waa maxay sababta san u sameynayno maxaa yeelay waxaa jiro cudurka coronavirus saameynta cudurka coronavirus uu ku hayo wadamada kale markii loo barbar dhigo Soomaaliya waa mid liidata laakiin waa inaan ku dadaalnaa nadaafadda cudurkan تدواتكان وحو نقن دونا ميد آد وحيس بدن. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه من أحد يقول يا ليتني قدمت لحياتي أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فرط رقبة أو إطعام ذي يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا ثم كان من الذين آمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. السلام عليكم يا عروس الدعوة maanta maalmahayga aynu kaga sheekeynaa waqti waa soo kaca ilkahan cadaysta markaa ilkaha cadaysta waan ku raacdaa kitaabkayga soo qabtaa cashirkaan aqristaa markaa bartan dugsigaygaan aadaa markaa soo laabtana waa qadeeyaa waa qureystaa waa seexdaa markaa soo kacana dugsigayga habeenkiina waa cashirkayga diyaarsadaa waa seexdaa sidoo kale waxaan fiirsadaa aniga fiilmaanta boqortooyada oo kartoonyaasha iyo wiilka loo yaqaan Shibaha oo fiilmaanta jilo sida askariyaasha kale marka waana caruurtana waa fiirsadaa heesaha oo caruurtana waa fiirsadaa waxa dhowna waxa ciyaalka quseeyo haddana waxaa la gaaray xilligii aad daawan jirteen xubinteennii akhlaaqda wanaagsan waxaa ii sheegtaa qof fiican sida lagu noqdo in waalidka baari loo noqdo in hooyadaa waxay ku dhahda maqashid in ilaahay laga cabsado waa mahadsantahay ku soo dhawow barnaamijka faac cusub magacaa Sumayo waxaa ii sheegtaa sida qof fiican loo noqdo inaa hooyadaada hool u qabatid inaa ilaahay caabudid inaa salaada tukatid 5 jeer waa mahadsantahay ku soo dhawow barnaamijka faac cusub magacaa almaas sidee loo noqdaa qof fiican inaa hooyada yaabaa cabsid inaa 5 waqti salaada aad tukatid inaa ilaahay ka cabsatid waa mahadsantahay almaas أحمد عبد الحسن قف معنا بارك دكتور إلى الأسكار وحنا ندي صلاة قف ونكسر حلو نخبة إلى والدك
والدكينا بار رونق إلهي لي عبصل صلاة للدكتور ودكسي لآذ والدك وركي سلتين بقى أحمد فرح والدك بار رونق صلاة للدكتور الدكسي لآذ اسكول كلاد إلهي لي عبصل markaana waxaad daawanaysaan xubintii isboortiska. Yes, ولا دليل markaana kusoo dhawaada xubintii suugaanta heestii heel walaal.
الولاد الولاد جبوتاي الولاد الولاد جبوتاي الولاد ويا ذاكي عيد شيء ويا لي وراك تخصيصي جبوتاي ويا ذاكي عيد شيء ويا لي وراك تخصيصي جبوتاي أنا نولابتو يبيو قالي حقو الولاد الولاد جبوتاي الولاد ويا ذاكي عيد شيء ويا لي وراك تخصيصي جبوتاي ويا ذاكي عيد شيء ويا لي وراك تخصيصي جبوتاي أنا نولابتو البيو قالي حقو الولاد الولاد جبوتاي الولاد يدكي دبتو يدي ورددي لسيحريو جبوتاي الولاد يدكي دبتو يدي ورددي لسيحريو جبوتاي الولاد هالبولها هالبولها إيجا ولا هالبولها هالبولها إيجا ولا هديرونا هلو أمرين ودنو مراغيه ودنو مراغيه ودنو مراغيه ودنو مراغيه هالبولها هالبولها إيجا ولا هالبولها هالبولها إيجا ولا هديرونا هلو أمرين ودنو مراغيه ودنو مراغيه ودنو مراغيه ودنو مراغيه walaalkay aanugo welibaanay biyo ilwalaad ilwalaad jabuutay ilwalaad walaalkay aanugo welibaanay biyo ilwalaad ilwalaad jabuutay ilwalaad afadaankiyo guriga habeenkii aan ka dhaxo hilkii aan gooyanayo hilbiya gacalba ixigo ilwalaad ilwalaad jabuutay ilwalaad afadaankiyo guriga habeenkii aan ka dhaxo hilkii aan gooyanayo hilbiya gacalba
نقي ويجاجا جنة نقي 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 ويجاجا جنة نقي 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 haddana kusoo dhawaada qaybtii su'aalaha ee barnaamijka Faac Cusub. Toddobaadkan su'aasheen wuxuu ku saabsan tahay waxaad sheegtaa madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Soomaaliya. وعبد الملك عبد الكريم مدحوينها الصومالي هو وعادن عبد الله عثمان. عبد الكريم مدحوينها هو الصومالي عادن عبد الله عثمان. أحمد فرح مدحوينها هو الصومالي عادن عبد الله عثمان. barnaamijkeeni Faac Cusub ee toddobaadkan inta ku soo gabagabeynayna waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo bye bye.